بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة لما أنا خيارته waxaan rabaa maanta inaan halkan idinku soo gudbiyo barnaamij ku saabsan xaaladda nololeed ee ka jirta waddanka Koonfur Afrika. waxaan rabaa inaan wareysi la yeesho arrintaas ku saabsan qoraa Macal Mukhtaar Sheekh Cabdiraxmaan ahna macallin wax ka dhiga madaarista ku taala waddanka South Africa. soo dhawaad Macal Mukhtaar. aad u mahadsantahay aadan Sheekh Cabdiraxmaan aadan Okiyaale adiga iyo asxaabtaada ku xiran groupka page-ka Facebook-ka aadan islaamiya jumca mubaarak. sidoo kale ku salaamayna waxaan rabaa inaan wax yar ka wareysto arrimo ku saabsan xaaladda ka jirta waddanka South Africa. sidaan ognahay waddanka South Africa waxaa ka jira dhibaatooyin badan, dilal, tacadiyo kala duwan oo loo geysto dadka ku dhaqan waddankan gaar ahaan Soomaalida. adigana waxaa tahay nin qoraa ah oo wax ka qoray buugaag badan ka qoray arrimaha ku saabsan waddanka South Africa. bal xaaladda guud ee waddankan iyo Soomaalida bal xaaladooda hal iyo laba. bismillah aad ma staadan Soomaalida South Africa alxamdulillah way ku dhaqan yihiin way ku nool yihiin ilaa 50,000 40,000 ayaa la sheegaa Soomaali inay ku nool yihiin South Africa gaar ahaan magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka hoos yimaada inay ku nool yihiin 50,000 oo u badan dad dhalinyaro ah ayagoo shalay waxba haysan ay waddankan soo galeen filla alxamdu maanta way ku dhaqan yihiin haba ku dhibaataysnaadona dhibaato badan loogu geysto laakiin shalay dadka soo galay maanta waa dad wax haysto oo tujaar ah oo ganacsi leh oo dukaamo leh oo dadkoodii iyo reerihii ay ka soo tageen biisha. marka xaaladda guud ahaan South Africa waa xaalad noocaas ah haba lagu dhibaatay Soomaalida South Africa laakiin waa meel ay ku dhaqan yihiin waa dad noocaas. aad iyo aad waddankan South Africa wuxuu ka mid yahay marka la eego qaaradda Afrika meelaha ugu badan ee Soomaalida ku nool yihiin. sidoo kale wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ee lagu dilo Soomaalida marka dunida dhan la eego. maxaa isleedahay Soomaalida waddanka way ugu badan yihiin oo wadamada kale oo caalamka way ugu yaryihiin marka loo eego waddankan maxaa keenay in saas ugu badnaadaan? waa sax dhibaatada ugu badan oo dilalka ah marka adduunka la fiiriyo meesha ugu badan oo Soomaali joogto lagu dhibaatay waa South Africa. laakiin dadka adduunka jooga waa inay waaqiciga South Africa wax badan ka ogaadaan. South Africa waa waddan ay isugu yimaadeen dhammaan shucuubta Afrika. waxaa kaloo jooga dhammaan dadkii ama tuug ahaa ama ganacsado ahaa ama nin wax maxaa la dhihi jiray inuu maxaa la dhihi jiray horumar sameeyo rabay nooc walba uu bani aadan ka kooban yahay South Africa wada joogaan. waxaan dhihi karnaa tuugada Afrika oo dhan halkan ayay wada yimaadeen waa wada joogaan. laakiin haddii aan si toos u galo su'aashaada Soomaalida South Africa waa sax waa la dhibaateeyaa waa la dilaa balse dhibkaas iyo dilkaas mid ayaga kaliya ku kooban ma aha waa dadka waddanka jooga oo dhan ayaa la dhibaateeyaa. laakiin Soomaalida waa dadka koobaad ay usha ku dhacdo oo marka dhibaata ay dhacayso kow waxa dhibka ugu horeeya oo asiiba ayaga waayo waxaana keenaya waxay degan yihiin meelo tuulooyin ah oo ay u badan yihiin dadka fuqarada ah oo aan waxba haysan. Soomaalida halkaas ay u badan yihiin. Soomaalida waa dadka ugu horeeya meelaha gala ayaga u badan ayaga ka ganacsada dadka dadyo kale waa jiraan sida Ethiopia iyo Bangladesh oo kale laakiin dadka ugu badan ee meelaha ku jira oo ka ganacsada waa Soomaali. dadka fuqarada dhex degan yihiin waa meel tuuga degan yihiin waa meel amniga ka jira oo yar yahay oo laamaha amniga in awood ku lahayn waa meel isku raran ah waa meel aan wadooyin fiican iyo maxaa la dhihi jiray iyo jidad aan lahayn. dukaamada badankood ay Soomaalida ganacsi ku haystaan meelaha ay dukaamada ay ku haystaan meelahaas waxay u badan yihiin meelaha taa aan sharci ahayn oo meel iska caadi ah oo maxaa la dhihi jiray oo basiiba iyo intay dukaamo ka sameysteen ay wax ku sameysteen. Soomaalida marka dhibka ugu koobaad wuxuu u dhacay noocaas waay dadka ayaga is dhibaateeya waxa laga yaabaa dukaaman ay dadkii iska lahaa soo Afrikaanka ah ay ka carareen oo ay ka shaqeysan waayeen yaa Soomaali ka shaqeysan intay furtaan waa lagu dhibaateeya marka adoo ajnabiya oo waxba maxaa la dhihi jiray shalay waddanka soo galay oo aan garanayn oo dadka aan kala garanayn oo aan community aan kala garanaynin oo ummadii aan kala garanaynin
oo maxaa la dhihi jiray wacyi meesha ka jira aan garanay oo kii tuuga iyo kii wax ka gaday aan kala garanaynin yaa meesha soo degaysaa waa lagu dhibaatay waa lagu dilayaa waliba dadka badanaa la dilo waxa ugu badan dadka wadanka soo galay Newcam ka dhahan dadka badanaa wadanka soo gala oo dhalinyarada oo dukaamada ku cusub yaa la dhibaateeyaa maxaa yeelay wacyiga iyo meesha wax ka jira ma oga dadkan wax dhibaateynayana dadka kale laga ma yaqaan oo dadkii waxa weeyaan kii wax ka gadanayay iyo kii kale waa dad wada madow waa dad wada ama dhalinyaro ama odayaal wuxuu raba ahaado dadkii marka kale ma garanaysto Soomaalida dhibka ugu koobaad dhibaatada ugu badan waxay ugu dhacayso waa hawsha noocaas oo kala aweeyay meelahaas ayagaani ku jiraan waa meelaha halisteeda leh waa meelaha dadkan soo Afrikaanka gaar ahaan nimanka Hindida leeyahay markay wadanka ku cusbaayeen meelahaas ay galeen way ka ganacsan jireen way iskaga carareen Soomaalida markay galeen u sheegeen waxay dhaheen walaalayaal dad muslimiin ah tiin waa ka naxaynaaye meeshan anaga inta galnaa nagu dhibaateeyay ama dhibka u adkaysta ama iskaga bax Soomaalida ilaa hadda way ku jiraan waxayna u egtahay inay ku sii jiri doonaan inkastoo dad yow badan hadda ay ka daba galeen si Etoobiyaanka kale laakiin Etoobiyaanka badankooda waxa laga yaabaa inay dad gaala yihiin gaal asaasi ka dhow isku dhaqmaya laakiin ninka Soomaaliga meesha ku jira dadkan gaala waaye lama dhaqmi karo oo la dukaanka isku dhex jira wuxuu markuu fahmayaa nin u yimid inuu ayaga hantidooda qaata bis oo aan diyaar u ahayn inuu ay wax ku soo kordhiyo saas oo marka qof Soomaaliga wax ku naqanaya target in ay siga la dhibaateeyo waa gartay marka waxa jira dad qaba Soomaalida laftooda inay qayb ka yihiin dhibaatada oo waxay sameeyaan dukaamo ay isku aqabtaan oo kale qof macnaha walaalka dukaan u leeyahay ku aqabto asagana dib ay ka soo gaarto oo kale arrintaas oo kale ma laga yaabaa inay xitaa dilalka iyo waxyaabaha ay keento ma laga yaabaa suurtagal ma tahay waa mararka qaar waa dhacdaa waa dhacaysa mararka qaar kiisaska noocaas oo kale ah mararka qaar way dhacaan Allahu musta'aan maxaa la dhihi jiray barnaamijkaas oo kale mararka qaar wuu dhacaa waxaana dawladda South Africa mararka qaar way ka hadashaa barnaamijyada noocaas oo kale ah waxay dhahan kiisaska noocaas oo kale mararka qaar Soomaali ay dabada la galaa waa bani aadan qofka Soomaaliga naftigiisu dad iska iimaan daran way iskaga jiraan oo laga yaabo qof walaalka ama ku dukaan agtaada ka furto waxay dhahan Soomaaliya South Africa ku aqabo ku qadimaysid macnaha qof dukaan kugu qabanaya ama dukaankii ayaad ka gadanay oo aad leedahay maxaa la dhihi jiray nihow iga agur lacagtan qaaday inta iska laaluushto suuqaaga tago waa baab ama qofkii meeshuu degaya markaasuu meeshii ka ganacsanaya labada nooc buu dhacdaa ku aqabo ku qadimaysid qof marka dad badan oo iska imaalaan way jiraan oo marka walaalkood soo agdago laga yaabo inay isdhahaan maxaa la dhihi jiray customka ama dadka macaamiisha wax ka gadato iyo ka hor istaagaya in ay dhibaato u geystaan waa laga yaabaa dad noocaas oo iimaan daran oo Soomaaliya way jiraan laakiin ma badna waa gartay marka waxa jira buugaag ka qortay xaaladda South Africa buugaagta waxyaabo badan ay ka hadlayaan oo macnaha sida aragna waxay ka hadlayaan macnaha dilalka oo kale waxyaabaha dadkan Soomaalida kaligood inta badan loo taargid kareeyo marka buugaas oo kale macnaha wax faahfaahin hadda dadka macnaha ku daawanaya buugaas wax faahfaahin oo kale ma naga siin kartaa buug horta insha Allah waa maxaa la dhihi jiray December insha Allah haduu leeyahay ayaan rabaa inaan insha Allah taala soo bandhigo inaan asxaabta u sii hor dhacana insha Allah taala ma sii faahfaahiyo marba laakiin hadii aan hor dhaxan ka sii bixiyo buuga guud ahaan wuxuu ka hadlayaa horumarka ay Soomaalida ka sameeyeen South Africa waxa uu kale ka hadlayaa dhibaatooyinka Soomaalida ku haysta South Africa dhan kasta hadii ahaaleed sharciyada hadii ahaaleed dilalka hadii ahaaleed maxaa la dhihi jiray isbitaalada hadii ahaaleed safarada hadii ahaaleed baabuur dadka iska wada Soomaalida badankood oo aanan laysankii loogu talagalay ama ogolaashihii loogu talagalay inay baabuurta ku wada aan haysanin waxyaabo badan oo noocaas ayuu insha Allah taala buuga ka hadlayaa marka waxyaabo ka hadlayo kala xakamada maxkamadaha Soomaalida aad ugu dhiban yihiin iyo kiisaska Soomaalida loo geysto oo ay in badan iska dayacaan oo aynan sida loogu rabo aynan u dabagelin waxyaabo noocaas oo badan buu ka hadlayaa waa gartay aad u maasanta waxaan rabaa inaan iska soo koobno salaadii jimcaha nagu soo foolay marka ugu dambeyn Soomaalida South Africa baaq macnaha u diri lahayd maanta oo macnaha dhihi lahayd saas iyo saas iyo badbaadadina waa saas iyo saas hal iyo laba maxaa baaq u diri lahayd Soomaalida ku dhaqan wadanka Soomaalida South Africa oo aniga aan kamid ahay waxaan baaq u diri lahaa kow inay ku dadaalaan Allah ka cabsiga waa dad muslimiina in badan waxaan ku aragnaa dhalinyarada markay iska galeen tuulooyinka inay cibaadadii iyo Allah ka cabsiga iyo salaadii iyo wixii dhan ay ilaabeen ama ay ka tageenba maxaa la dhihi jiray oo aad arkayso dad mararka qaar marka uu dadku weydiinaya ku dhahaya Ramadaan ma lagu jiraa soo iska cunaya ama aan salaadii aan dukaneen marka dadka noocaas oo kale oo tuulooyinka halista badan oo qatarta badan inta galay haddana aan ku dadaalin cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga yaabo qof oo ku jiro kala way oo maxaa la dhihi jiray qof meel aaga ku jiro kala to way because 24 saac
waxaa weeyaan hareerihiisa yaa dadka wax dhibaateeya ay taataagan yihiin dadka noocaas oo kale horta ko inay alla kacabsi ku dadaan oo cibaadada ilaah subxana wa taala ku dadaan ta kale dhalinyarada lokeeshinada ama meelaha tuulooyin ku jira waxaan leeyahay meelahan si allaala sidii aad ugu soo bixi laheedeen oo aad magaalooyinka u imaan laheedeen maxaa yeele magaalooyinka waa meelo ammaana oo aan dhibaato ka dhicin waay inta badan marka meelaha tuulooyinka si aad ugu soo bixi laheedeen oo magaalooyinka aad u soo geli laheedeen ka shaqeeya dadku wareey hadda Soomaalida ah oo meelaha galay badankood way ka soo baxeen magaalooyinka soo galeen hadda waa dad tujaaro magaalooyinka ganacsi kula waay dadka hadda location u badan waxay u badan yihiin dadkii 2008 wixii ka dambeeyay dadka wadanka yimid u badan yihiin kuwa hadda meelaha lagu dhibaatay oo ku jira marka si allaala sida aad ugu soo bixi laheedeen falkeeda gala meeshaan aragteen irsaaqad waa taala laakiin naftaada inaa haligta ma ahan oo hadhow qof oo meel aad u jeedo inaad ku dhimanayso naftaada aad geliso hadhow aakhir waxa laga yaabaa in lagu xisaabtamo naftaada waa garta marka la eego nolosha tan magaalooyinka iyo midda lokeeshinada oo kale xogaa way kala adag yihiin waxaa muddo qofka markuu xogaa adiga macna wax saas uusan haysan inuusan ku noolaan karin magaalada ama uusan ganacsi ka samayn karin marka qaabkee la isku waafajin karaa oo laga soo bixi karaa lokeeshinada magaalo loo imaan karaa qofkiina waa iyadoo wax buuran uusan haysan waa sax su'aal meesha ku jirta waaye oo dadka cusub ama dhalinyarada oo waxba haysanin sida badan waxay galaan meesha la yiraahdo lokeeshinada ama tuulooyinka ay galaan waxaana keenaya inay galaan duruufta keenaysa maxay magaalada inaad dukaan weyn furato lacag badan u baahan yahay sharci u baahan yahay laakiin meelaha soo kala sharci uma baahna dhaqaale buuran uma baahna qofka xalaga $2,000 la soo diraya sanad gudihiis waxa laga yaabaa inuu ay $10,000 $20,000 way kordhaysaa way badanaysaa laakiin qatarna fayda meesha taal waxaan ka wadaa sideedaba horta magaalo iyo mii isku mid maaha fursad iyo horumar haddaad rabto inaad magaalo la joogto waay magaalo inaad la daristo waay haddaad horumar rabto laakiin haddaad rabto inaad alyoomkaada dhacsato oo qatarna naftaada aad geliso haddana markaad soo afka kula joogto location inaad joogto saasay noqonaysaa laakiin markaad magaalo joogto magaaladu waxay ku fiican tahay fursadaheeda badan oo waxaa waye magaalo haddaad iska joogto maalin unbaa ilaahay maxaa la dhihi jiray meel kuu furayaa marka Soomaalida waxay dhahaan dad horumar aad rabto magaalaha ka fogaan mii laakiin weligii horumar male waa meeshaad unbaa taaganaanaysaa marka magaalada dukaan badan hadda Soomaaliya laga furay oo shardi ma inaad dukaan furato shardi ma dukaan badan Soomaaliya laga furay hoteelada ka furan internetka ka furan meel badan laga shaqeysan karo yaa ka furan dhalinyarada marka qofka intuu dhilaaniyo meesha inta gashid saaxiibkaaba shalay intuu galo sanad gudihii dukaan ku yeeshay oo magaca aad qaaday dukaan oo hebel dukaan oo intuu dhilaha adoo magaalada jooga oo $100 cid u dirsan kara oo $300 heli kara ama $200 heli kara yaa kaaga fiican naftaada iyo cibaadadaana ay safe ku yihiin si fiican aad baad u mahadsantahay macallin Mukhtaar dad badan akhyaar badan baad soo salaamaysaa halkan oo macnaha Cape Town xaaladeeda ka hadlaya marka aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan insha Allah barnaamij oo macnaha taxan oo noo noqon doona marka haddana waqtiga salaada jimcaha ayaa soo dhow marka aad baan idin salaaminaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam